يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. waxaan soo gaarnay xalaqadii 29aad waa barnaamijkii barashada cilmiga dhaxalka. xalaqada 29aad waxa ay ku saabsan tahay baabu tasxiix almasaa'il. baabkii xisaabta ayaan ku jirnay. waxaan ka soo hadalnay tacsiir almasaa'il iyo waxaan ka soo hadalnay alcawl. maanta waxaan gelaynaa baabu inkisaar asihaam. marka waxa weeye haddii qofkii wuxuu qaadan lahaa ay jajab kaga dhaco ama kasri, marka aan asalaynayno masaa-isha lama ogolo. walidaalika kasriga ma galo markay dadka wax dhexlaa yihiin asxaabu alcasabaat, sababtoo ah alaslu min cadadi ru'uusin baa len. haddii qof dhinto uu ka tago 3 wiil, 3 wiil madaxyooda ayaan tirinaynaa. asalka wuxuu noqonayaa 3. qof kasta waxaan siinaynaa waxa uu lahaa, jab kuma jiro. haddii ay sihaamta qofku wuxuu lahaa u qeybsamayaanna waxa weeye ayadana ma gelayo tasxiix. laakiin tasxiixu goormu imaanayaa? asihaamu munkasiratun calىa asxaabiha aw calىa asxaabi اlfuruud. dadkii faradka iska lahaa baa sihaamtii ka jaban tahay. marka haddii aan wax yar xagga sabuuradda u leexano, waxa weeye sabuuradda u leexano intaanan gelin tasxiix almasaa'il, waxaan u baahan nahay awalan inaan fahno maxaa la yidhaha sahmi. horta aan qaadano masale, aan qaadano qof baa dhintay, waxa uu ka tegey zawjadiisu ka tegey iyo waxa uu ka tegey wiilkiisu ka tegey. sida meesha nooga muuqata maanta zawjadu waxay leedahay athumun, 8 meelood meel bay ku dhexlaysaa. wiilkana waxaa la yihahdaa casaba, waxa soo haray buu leeyahay. markaan asalaynayna masaa-isha waxa weeye maanta waxaa ku jira qof hal farad leh, wuxuu noqonayaa maqaamu dalika alfard. hooseyahaas un baan ka dhigaynaa. asalka masalada wuxuu noqonayaa 8. zawjadii ama maarata haweentu waxay qaadanaysaa hal 8 meelood meel. waxaa soo haray waxaa iska leh wiilka iska leh. markii ay saas tahay masalada wax hadda ku jira ma leh, qof kasta sihaamtiisa u qaybsamaysaa. laakiin haddii aan ka dhigno ka waran, haddii wiilka meeshaan hal xabo noo yaal aan 2 wiil ka dhigno, haddaan 2 wiil ka dhigno maanta ninka 3 bar baa ku soo-aayaysa. marka kasri lama ogolo. marka waxaan leenahay maanta waxaan u baahan nahay tasxiix, sababtoo ah asihaamu munkasiratun calىa alabnaa. dadka waxay iska lahay maanta way ka jaban tahay. marka waxaan leenahay waxaan su fiirinaynaa maaragtay
sihaamta oo ah 7 wuxuu qaadan lahaayeen oo ah 7 iyo ayagoo 2 ah waxaan leenahay waxaa ka dhexeeya tabaayun madaxyadan qaadaynaa waxaan ku dhufanaynaa asalka masalada masaladii way ka guureysaa 8 waxay aadaysaa 16 16 bay aadaysaa 16 markay aado labadan waxaan u dhufanaynaa zawjadii halkaa ugu dhufanaya waxay qaadanaysaa 2 ay qaadanaysaa wiilashan waxaan u dhufanaya 7 2 u dhufanayna 14 mid kasta wuxuu leeyahay 2 waan tasxiixina masaa'ish marka waxaan rabnaa inaan mustalaxaadkan meesha ku yaallo ah sahm alfard tasxiix juzu sahmi masaxu lmasala maxay yihiin sida meesha nooga muuqata horta sahmi waxaa la dhahaa waxa qofkan uu qaadanaya ugu dambeysa waxaa la dhahaa sahmi hadda 2 iyo 14 waxaan leenahay waa sahmi ama sihaam midkaa tirahda waa waxa qofka maa yarisu alwaarisu miqdaara maa yarisu alwaarisu min atarika waa sihaam wey kow faradna maxaa la yihahdaa faradku waa kan waxa weeye waa xisat lwaaris qofka hadda maanta wuxuu qaadanayaa kanna waxaa la dhahaa farad baa la dhahaa tasxiixa maxaa la yihahdaa waa taxsiilu aqali cadadin yanqasimu cala alwarasa bilaa kasrin camalidda aan qabanayno waxaa la dhahaa tasxiix baa la dhahaa camalidda aan samaynayno marka aan isu fiirinayno bayna ru'uus waa asihaam oo aan leenahay waa tabaayun labada aan qaadayn aan ku dhufanayno asalka masalada camalidda aan samaynayno waxaa la dhahaa tasxiix waxaa soo haray masaxu lmasala meesha ugu dambeysay masalada ay ka ansaxdayna waatan waxaa la dhahaa masaxu lmasala la dhahaa waa meesha masalada ay ka ansaxday oo kasri ay kaga baxday waxaa soo haray juzu sahmi juzu sahmi waa maxay waa midkan aan ku dhufanayno maaragtay masalada oo waxaa la dhahaa isagana juzu sahmi marka 4tii musطalax ee noo taalay meesha waxa weeye sahmi maxaa la dhahaa miqdaar maa yaris alwaris min atarika hadhow maaragtay haddii taraka la qaybinayo 16 loo qaybiyo labadaasu helayaa fardi maxaa la dhahaa waa xisat lwaris qofka waxa uu leeyahay oo waxaan wax ku dhexlaa qofkaani zawjada maanta ilmaha dejiga waxay ku dhexshaa thuman tasxiixna waa camaliyadda aan samaynayna markii uu kasri dhahay camaliyadda aan samaynayna way juzu sahmina waxaa la dhahaa waa xadu sahmi alwaaxid min asli lmas'ala qofka wuxuu ka yeelanaya baa la dhahaa juzu sahmi baa la dhahaa masaxu lmasala waxaa la dhahaa meesha ay masalada ka gaartay maaragtay baa la yihahdaa marka inkisaarku muxuu yahay marka inkisaarku waxa weeye sihaamtii asihaamu laa tanqasimu cale alwarasa waxaa kaloo meesha naga maqan qolada ay ka jabtana waxaa la yihahdaa qoladaas ay ka jabtana waxaa la yihahdaa fariiq waxaa la dhahaa fariiq baa la dhahaa marka mustalaxaadkaas way la soconayaan waa asahm alfard tasxiix juزء الsahmi masaxu lmasala fariiq marka maanta masalada inkisaarku wuxuu u qaybsamaa 2 qaybood inkisaarka waa 2 qaybood inkisaarku waa 2 qaybood inuu yahay calى fariiqin waaxid iyo inuu yahay fariiqayni fa aksar iyo calى fariiqayni dadka ay wax ka jabeen oo sihaamta waxay lahayn ay u qaybsami karin waa un 2 qaybood
inay hal koox tahay iyo inay laba koox wax ka badan yihiin. hadday hal koox tahay qofka faradiga ah oo cilmigan yaqaana nadara hal aragti un baa laga rabaa. waxaa weeye halka aragti oo laga rabo wuxuu isu fiirinayaa bayna alfariiqi wa sihaamihi. bayna alfariiq wa sihaamihi, kooxda ay ka jabtay iyo sihaamteeda isu fiirinaya. hadduu isu fiiriyo laba un baa kuu soo baxayso, inay sihaamtii fariiq isu noqdaan ima tabaayun wa ima leh tawaafuq. sihaamtii wuxuu qaadan lahaa iyo kooxdii inay isu yihiin tabaayun, sida hadda misaalkan oo kale. maanta kooxdii waa 2 sihaamtoodina waa 7, waa tabaayun. markaa madaxyadan qaadanaynaa, asalka masaladan ku dhufanaynaa. hadday tawaafuq noqdaanna wifqiga u dhexeeyaan fiiraynaa, madaxyadan wifqi u celinaynaa, waxaan ku dhufanaynaa maaragtay asalkii masalada. marka qeybta hore hadda waxaan xoogga saaraynaa haddii hal fariiq ay ka jabto, hal koox haddii ay ka jabto, kooxdaasi waxaan isu fiirinaynaa sihaamtooda iyo kooxda ay ka jabtay. 2 mid baa noo soo baxayso. atabaayun sida misaalkan oo kale 7 ay haystaan, sihaamti waxay qaadanaya waa 7, ayagiina madaxyadeedu waa maxay? waa 2. uma qaybsanto oo 3 bar meesha inay soo gasho lama rabo. marka madaxyadeedan qaadanaynaa markaas oo kaamila, asalkaan ku dhufanaynaa, waan tasxiilinaa. waxaa soo haray haddii ay tawaafuq u dhexayso, hal kooxna ay ka jaban tahay. calaa sabiil mithaal waxaan soo qaadanaynaa mithaal, tusaale hooyo, qof baa dhinta wuxuu ka tegey hooyadiis, gabdho wuxuu ka tegey walaalo ah iyo adeer buu ka tegey. masalada maanta waxaa noogu jiro 2 koox oo farad iska leh iyo casabo oo adeerkii ah. marka waxaan leenahay hooyada maanta waxaa joogo gabdho, waxay leedahay sudusulmaal ayay leedahay. gabdhina waxay leeyihiin sulusaan. adeerkana waxa soo hara buu leeyahay 6 iyo 3. labada hoose haddaan isu fiirino way isgudagelayaan. 6daan qaadanaynaa. 6dii haddii hooyadii sudus ay qaadato waa maxay? waa 1. gabdhihii maxay leeyihin sulusaan? waa 4. adeerkiina waxaa weye waxa soo har u leeyahy waa maxay? waa 2. maanta gabdhaha meesha ay ka yihiin 2 haddaan ka dhigo masalan 6, hadda waxaa weeye sihaamta waa sax, lakin haddaan gabdhaha 6 ka dhigo meeshaan 6 haddaan ka dhigo oo aan u bedelno banaat 6 hadday noqdaan, gabdhihi maanta waa 6. maanta waxaa weeye halkaan kasri kuma jiro, u qaybsantay, halkaana kuma jiro meeshaan, laakiin sihaamtii waa 4. maaragtay kooxdii fariiqina waa 6. waxaan leenahay way ka jaban tahay maanta, way ka jaban tahay. waxaa weeye asihaamu laa tanqasimu calaa asxaabi ilfuruud. dadka iska laa farad kuma qaybsamayso. maanta waa 6, waa banaat. marka hore waxaa weeye waxaan ka dhignay idoo saxa 2 gabdhaan, laakiin waxaan u bedelnay banaat baan idhi, banaat baan idhi. gabdha way 6 gaaray. maanta isu fiir marka, maanta bayna alfariiq gabdhahay ka jaban tahay iyo sihaamka isu fiiriya, tawaafuq u dhexeeyo 6 iyo 4. waxa u dhexeeya labadan waa 2, labadan waxaan u qaybinayaa 6da, waxay noqonaysaa 3. 3dii waa juz-u sahmi, waxaan ku dhufanaynaa 6daan ku dhufanaynaa. waxay isu bedeleysaa masaladii 18 bay isu bedeleysaa. 18kii hooyadii waxaan siinaynaa juz-sahmigaan wax ku qaybinayna waan xina xadul sahmi alwaaxid min almasala niri, waxaan siinaynaa 3 baan u dhufanaynaa. hooyadii waxay qaadanaysaa 3. gabdhihii ay ka jabeen 4 ahaa 12 markaan ugu dhufano oo 6 ay ahaayeen, mid kasta maxay qaadanaysaa
waxay qaadanaysaa labay qaadanaysaa mid kasta ugu dhufo maaragtay adeerkina labadiisa saddex ku dhufo 6 masaladii maanta kasriga waan ka saarnay oo cadadka yaraa 4 ah oo 6 u qaybsamaya waan soo qaadnay waxaan keennay 12 sababtoo ah madaxyadooda wifqigooda oo ah markaan 2 u qaybinay 3 baan ku dhufanay masaladii way tasxiix bay gashay waxaa weeye waxay ka ansaxday 18 maxaa u daliila inuu camalka naga sax yahay waan isku daraynaa waxaan leenahay 6 ugee 12 waa 18 waxaan ilaa waa 6 ugee waa 18 18 waxaad u geysaa waa 21 marka camalka nagu sax maaha marka halkan ayaa baaqiga qalad naga ah baaqigan waxa weeye adeerka usoo haray 2 maa waa hal waxa usoo haray adeerka meesha aan 2 siinay waxa usoo haray waa hal hadduu usoo haray marka ugu dhufo 3dii waxa uu qaadanayaa 3 marka hadda masalada fiiri jamci mar kasta waa inaan jamcino 14 2 ku dar waa 16 hadda waxa weeye adeerkii baan waxaan siinay 2 muun lahayn hal buu lahaa marka hadda jamci 3 haddaan isu geyno 3 ugee 12 waa 15 ku dar 8 waxaa weeye waa 15 ugee 3 waa 8 wey halkaa marka waxa weeye haddii inkisaarku uu yahay fariiq waaxid halku haddii ka jaban tahay qofka faradiga ah waxaa laga rabaa inuu fiiriyo bayna alfariiqi wa sihaamihi 2 nadr u fiirinaya bas inay ka dhexeeyaan tabaayun hadday tabaayun ka dhexeeyaan waa sida misaalka hore waxaan qaadanaynaa maaragtay madaxyadoo kaamil ah waxaan ku dhufanaynaa asalka masala jusahmi la dhahaa haddii ay tawaafuq ka dhexayso labada maaragtay tiro sida hadda gabdhaha oo 6 ah iyo maaragtay waxay heleen 4 ah wifqiga ru'uusta oo cadadka khaariji u qaybsan waa 2 labadan 6 u qaybinayna waa 3 3dan waxaan ku dhufanaynaa 6da 18 bay ka ansaxaysaa sidaa darteed bayna alfariiq wa sihaamihi baan fiirinaynaa faqad wax kale ma fiirinayno waxaa soo haray haddaan tusaale kala qaadano oo la mid haddaan qaadano haddaanan qof baa dhintay wuxuu ka tegey zawjadiisii wuxuu ka tegey zawja iyo wuxuu ka tegey ibn wuu ka tegey masalada marka hore si caadi aan u dhisaynaa waa nafs almisaalkii hore si caadi maanta u dhisaynaa masalada maanta waxaa ku jira qof hal farad leh zawjada maanta waxay qaadanaysaa thumun wiilkuna waa maxay waa casaba marka haddii hal farad ku jiro masalada waxaan idhi maqaamkaas ama hooseyaan ka dhisaynaa waa 8 waxay qaadatay hal waxa soo harayna waa 7 maanta wax dhiba kama jiro masaladii oo sihaamtii waa wada fiyow yihiin waxaan iftiraadaynaa inuu qofku meesha hadda zawjada tahay ay 2 tahay 2 ka tagtay 2 inuu ka tegay 2 habeenuu ka tegay hadduu 2 habeen ka tegay maanta sihaamtii oo ah hal sahmigu hal ah iyo ayagoo 2 oodan qaybsato maxaa u dhexeeya bayna alfariiq wa sihaami fariiq maanta ay ka jaban tahay waa haweenka 2 weeye maaragtay waxay wataanna waa hal marka waxaan leenahay waa tabaayun waxaan ku dhufanaynaa 2dii waxaan ku dhufanaynaa asalkii masala waa jusahmigii masaladii waxay isu bedeleysaa 16 bay isu bedeleysaa 16 markay isu bedeshay waxa weeye zawjadii waxay qaadanaysaa maanta 2 qaadanaysaa 14 waxaan qaadanayo wiilkii haddaan kulmino waxa weeye aan jamcino 16 bay noqonaysaa marka inkisaaru sihaam markuu dhaco waxaan soo qaadaynaa sihaamtii baa yaraa kor baan usoo qaadaynaa meeshii ay ka ahayd hal 2 ka dhigaynaa marka waxa weeye haddii inkisaar uu jiro waa inay hal koox tahay ama 2 koox wax ka badan hadday hal koox tahay qofka dhaxalka yaqaana waxaa la rabaa hal aragti buu fiirinaya wuxuu fiirinayaa fariiqa ama kooxda ay ka jaban tahay iyo waxa ku su-aaday oo sihaamtooda ah 2 unbaa usoo baxayso ima atabaayun wa ima atawaafuq
tabaayun waa maxay labada cadad wax ka dhexeeya ma leh sida haddoo kale waa 1 iyo 2 sihaamtii madaxi ama waxa weeye waa 7daas iyo 2daas oo kale marka waxaan qaadanaynaa madaxyada oo kaamil ah waxaan ku dhufanaynaa asalka masalaha saasuu macnaha tasxiix noogu imaanaya haddii aan weyno haddii muxuu ahaa ay tawaafuq tahayna waxa weeye labada cadad baa waxaan raadinaynaa cadadka khaarij u dhexeeya waa 2 madaxyada u qaybinaynaa 6dii 2 u qayb waa 3 3daan ku dhufanaynaa sidaa ayay maaragtay noqonaysaa in ay mas'aladii ay ku hagaagto ay kasri kaga baxdo waxaa soo haray haddii masaladu ay tahay calaa fariiqayn hadday tahay marka taa waan fahnay haddii masaladu calaa fariiqayn ay tahay waxaa nagala rabaa haddii masaladu calaa fariiqayn ay tahay ayadu waxa weeye 2 nadro ayaan ku fiirinaynaa nadrada hore waxa weeye waxaa la yidhaahdo bayna alfariiq wa sihaami si hadda ugu fiirinaynay nadrada wata nadrada labaadna waxaa weeye waxa la yihahdo waxaan baran doonaa maxfuudaat waxaan leenahay bayna almaxfuudaat ama maxfuudayn binisab 4 waxa weeye labadaas baan u firin doonaa waxa aan gooni ugu yeelaynaa xalaqada soo socota marka waxa weeye haddii khulaasa inkisaarka ama jabka uu ku dhaco maaragtay sihaamta ama dadka waxa ay lahaayeen 2 un bay noqonaysaa inay 1 koox yihiin iyo inay 2 koox yihiin hadday 2 koox yihiin way noo dambaysaa hadday 1 koox yihiin waxaan fiirinaynaa 1 aragti keliya waxaan isu fiirinaynaa kooxda ay ka jaban tahay iyo waxa ay haystaan 2 un baa noo soo baxayso inay tabaayun jiro ama tawaafuq haddii uu tabaayun jiro madaxyada ayaan qaadaynaa asalka masale ayaan ku dhufanaynaa meesha waxa weeye kasrigi baa ka baxay ama jabki hadday tawaafuq yihiin labada cadad waxaan fiirinaynaa cadad banaanka ah oo labada u qaybsamaya madaxyada u qaybinaynaa wafqigii baan marka soo qaadanayna wafqigaas soo qaadanaynaa waxaan ku dhufanaynaa asalkii masalaha sidaasna waxa weeye masaladii waxay kaga baxaysaa kasriga ayay kaga baxaysaa intii aan ku kulmayno xalaqa midaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa fii amaan illaahi wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد